السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan mar kale asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mid ka mid ah qisooyinka cajiibka ah ee aanu idiin soo gudbino waqtiyadan oo kale. haddaba qisadeena toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa sheekooyin la yaab leh oo ka kala dhacay Morocco iyo Qatar. waxaynu ka soo xulnay galka qisooyinka ee uu qoray qoraaga reer Kuwait ee la yiraahdo Abu Dalal al-Hamrani. sheekadu waxay isugu jirtaa dhinacyo kala duwan: jacayl, dambi baaris, dil, sixir, wax kasta isugu jirtaa. waa waxyaabaha inta badan bulshada ka dhex dhaca. waxaan filayaa inaynu ku cibro qaadan doono waxa dhacay iyo wax badanna aynu ka baran doono sida ay wax u dhaceen. haddaba qisadan waxay ka bilaabanaysaa marka hore dalka Morocco. wiil la yiraahdo Mohammed iyo gabar magaceeda lagu soo koobay Fatima ayay sheekadani khusaysaa oo ay ka bilaabatay. haddaba wiilkan iyo gabadhan waxay wada dhigan jireen iskuul, dugsi dhexe ilaa dugsi sare. waxaa ka dhaxeeyay sheeko, wada hadal, waxbarashada ku saabsan. markii dambe wuxuu isku bedelay haasaawe in uu dhex maro labadoodii. wiilkii jacaylkii wuxuu ka noqday mid dhab ah, laakiin gabadhu iyadu sidaa ma ahayn, laakiin way iskala sheekaysan jirtay Fatima. wuxuu waqtiga isku raba wiilkii markii dugsiga sare ay dhameeyeen wuxuu u soo jeediyey Fatima inuu doonto oo reerkooda uu ka doonto gabadhaas, kadibna uu markaa usoo diyaar garoobo, dhaqaale soo raadsado si uu gabadha u calmaday u guursado. gabadhuna waxay ahayd gabar aad u edeb badan, akhlaaq badan, qurux badan, maasha Allah ay ahayd. wiilkii markuu sheekada ula yimid, gabadhii marka waxay tiri dhagayso, tabar badan ma lihid adiga, macnaha dhaqaale badan ma haysatid. aniguna waxaan ahay gabar hamigeedu weyn yahay. waxaan mar walba niyada geliyaa oo aan ku riyoodaa, maadaama aan ahay gabar akhlaaq badan oo fiican oo qurux badan oo dadku ay jecel yihiin, inaan helo qof dhaqaale haysta, guri weyn oo qasriya inaan ka soo tooso, baabuurro qurux badan ku raaxaysto, nolosha inta aan noolahay sidee tahay inaan ugu baashaalaan rabaa tir. marka saaxiibo, ani adiga meel aynu kala tegayna male. nin hadda adeeradiis inuu inta u tago lacag qaaraana ka soo qaado igu guursado, waxaas noloshaas anigu inaan hadda ka bilaabo raalli macne diyaar uma haytir. wiilkii waa qayliyay, walaalay sidaa ma aha, dib isugu noqo, sootaan balan lahayn, wax badan naga dhaxeeyeen, lacagtu way iska imaanaysaa, waa la isu samraa, ma sheegin tirxas. ani adiga saaxiibo koraan nahay, bas salaamaynaa, waxyaabo kalaan ka sheekaysanaynaa, laakiin guurkan hawshiisa adiga kuma jirtid. hawshaas si kastoo inta u dhiganag waa diid. wiilkii dee sheekadii waa ku weynaatay, maasha Allah, waxay jacaylku iska sii weynaaday, si kastoo inta yeelay marka dambe go-aan wuxuu ku gaaray, maadaama gabadhii uu ka jeclaaday magaaladiisii ay sidaa u gashay, inuu dee dibadda iyo meelaha shaqo isaga doonto. shirkad uu shaqo xamaali ah ayuu wuxuu ka helay waddanka Qatar. halkaas ayuu isaga safray, meeshaasuu iska aadayo Qatar oo isaga safray. gabadhii muddo markay joogtay nin ayay isbarteen. maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo dariiqa maraysa oo labisan oo haddee say u laafiyoonayso aad yaabayso, ayaa nin odaya oo da'diisa lagu sheegay 65 ilaa 70 oo gaari qurux badan wata ayaa u joojiyay. hasuun hore ma kuu sii qaadaa, qoraxda laguguma dayn karo adigoo kale,
markaasay inta gaarigii fiirisay ayay raacday. waa la sii sheekaystay oo haye markaas wuxuu yiri aniga xaas baan leeyahay, caruurna waan leeyahay, laakiin waxaan daydayay qof sidaadoo kale ah, gabar yar oo qurux badan oo nolosha inta ii dhiman aan la noolaado. baashii lacag ahaydna anay deris ila tahay, waa agtayda iska dhooban tahayba baash. maclimadaan iyadu marka maxay samaynaysaa, awalba dreamkeedu lacag u ahaa, odayga ha weynaada ha yaraado wax ka quseeya ma jirin. waxay tiri marka hamigaagii hadduuba soo gacan gala, odayga gacantaa ku dhigta tiri. waxay tiri okay wax dhiba male. wax yaraa la sheekaystay, in badan xataa sheekadu ma socon. kadib reerkeedu ka doontay, gabadhii ninkii lacagta lahaa wuu guursaday. gabadhii uu guursaday qasrigii ay ku hamiyeysay waa la dejiyey, baabuurtii ay ku hamiyeysay waa loo soo dhigay. wixii oo dhan marka nolol waxay gashay wixii ay ku riyoon jirtay aa ilaahay dhab uga dhigay. laakiin mushkiladaa dhacdayoo wax caruura maysan dhalin. si kasta yeeshee dhakhtar kastaa loo geeyay, dibaddaa loo qaaday, nin lacag la waayo caruur way qaadi weyse ilaahay amarkiisa. muddo markay isqabeen ninkii odaga ahaa wuu xanuunsaday, kadibna wuu geeriyooday. allah yaraxm. ninkii markuu dhintay dee dhaxalkiisii iyo wixiisii waxbay ku yeelanaysaa, inkastoo aysan caruur dhalin. dhaxalkii wixii ay ku heshay baa ay soo qaadatay. iyadu markaa ma oga halka uu u safray maxamed waagiya ugu dambeysay. iyaduna dee gabdho ay saaxiibo yihiin oo reer Maroko ah oo qadar jooga, qaarkoodna ay amiirada qadar iyo waxa kan ay qabaan, ayay maaragtay saaxiib la noqoto. safarro ay iyadii odageeda inta baxaan qadar ku tagi jireen, meelahaasi soo baratay. kuwiya marka waxay yidhaahdeen dee halkan iska imaa, halkan baad ka helaysaa nin kaloo lacag hayste. iyadoo lacag bas iyo nin maaragtay xoogaa isku tootoosan waxaan ahayn maba salaamaysaba. xogaageedii lacagtay soo qaadatay, waxay u soo dhooftay qadar ay soo caga dhigatay. lacag marka waali ahay haysataa oo iyada ku filan. guri qataray kiriisatay, gaari qatarana way samaysatay. meelahaas shaqay doonatay, meel marka oo carwo ah iyo dukaan wax isku furan ah ayaa shaqo laga siiyey. halkaasay marka shaqo ka haysaa. maalin maalmaha ka mida marka iyadoo dukaanka ka soo baxday ay carwadii meeshii ay ka shaqaynaysay oo gaarigu dibadda u yaallo, ayaa maxamed oo iska socdaa waa la isqabtay. war waxa kan ma gabadhii Faatuma ahayda mise waa mid kale? wejigaa u furan, shukadeedii ay wadataa. markaasuu wuxuu yidhi salaamu calaykum. war maxamed miyaa ii waran? meeshaa la isku salaamay, waa la isxog waraystay, akhbaartaa la kala qaatay. waxay tiri nakeen. gaarigay ku soo qaaday, meel kafeeyaa la tegay, waa la fariistay, waa la sheekaystay. Faatima waxay ka sheekaysay nolosheedii markii maxamed uu soo tagay, wixii ay ku hamiyeysay inay gacanta ku dhigtay oo oday lacag leh ay guursatay, laakiin aysan caruur helin. sidaana ay dhaxalkii ku soo qaadatay, halkana ay degtay, hadda shaqana ay ka heshay, xaalkeeduna iska okaya. maxamed oo adiga warkaysi aleeri miyaad guursatay? sidee wuxuu jira ma guursan u dhahay. dhaawacii jacaylkaagu waagi ii geystay ayaan ka soo kabtay. hadda maalmahan waaba ku iloobay, laakiin hatta haddaan ku arkay waxaan ka baqayaa inuu haddana dib iigu soo laba kacleeyo. jacaylku caadi maaha. way yaabtay. cabaara kaftan la isku turtuuray, waa la isku turtuuray. kadib cilaaqadii in la soo celiyo oo halkii laga bilaabo sheekadii ayaa lagu heshiiyey. inkastoo iyadu ay nin lacag la raadinaysay, haddana laftirkiisu iska shaqaystaayo, laakiin lacag malaha saasa. nin biilkiisa iyo alaabtiisa ku filan waayay noloshiisa. wuxuu waqtiga isguraba xoogaa waxaa lagu heshiiyey in markan la isguursado. maxamed wuxuu u arkayay fursad aada u weyn oo soo martay noloshiisa. qofkii uu ku hamiyeyey niyadda uga jiray maalin uun inuu heli doono in ilaahay usoo gacan geliyay uu qadar ugu keenay.
waa la isguursaday markii la isguursaday gurigii iyadoo ay deganeed oo quruxda badnaa uu la degay lacagtii qayb ay haysatay ayay ku wareejisay noogu shaqeeya tiri asaga iyo nin kale ayaa shirkad noqday businessa la galay noloshu waxay noqotay mid aad iyo aad u qurux badan jacaylkii noloshii gurigii wixii oo dhan way isla qabsaday hawshu way israacday gabadhii uuray qaaday Faatima ahayd gabaray dhashay noloshu way sii qurux badnaatay qoys isjecel oo nadaamsan oo hadee maasha Allah iska noqday wuxuu waqtigu isku rabaa ninkii ay shirkada ahaayeen ninkii Maxamed ahaa ayaa waxaa la yiri lacagtii shirkadii wixii intuu isdaba mariyay oo lacagtii la gooyay ninkii waa la waayay kambanigii waa la qasaaray lacagtii iyadoo intay haysatay wiilkan Maxamed ay ku wareejisay wixii waa la wada qasaaray marka qasaara dhulka sagxadii la tagay maxaa la qabtaa gurigii la iska bixin karo kiradiisii sheeko waa xumaatay baabuurkii wixii waa la gaday wixii way socdeen sheekadii marka waxa lagu aruuray xaafad dadka xoogaa fuqarada ay degan yihiin ayay guri ka ijaarteen gurigu marka waa 2 dabaq isdul saaran qolo guriyaha kiraysa u tageen guriga laga kiriyay guriga marka waa iska lacag yar Maxamed iska soo xamaasha iyaduna meesheedii shaqada iyo wixii iska dadabarataa guriga kiradiisii way iska bixiyaan way iska fiican yihiin marka waxa la yaab kale wax waaye sheekada magaceeda aan idinka soo iloobay oo u bixiyay qoraaga sheekada magaceeda marka waxa la yiraahdaa Faatima iyo saaxirkii Luqmaan ahaa Luqmaan oday saaxir waaye sixroolaha marka odayga sixroolaha ah ayaa wuxuu leeyahay gurigan ay degeen qaybta hoose qaybta kor u degan yahay isaga wax caruur iyo xaas iyo wax u jooga male shaqadiisu marka saaxir Luqmaan waxay tahay carabtu day waa ogtiin odayaasha iyo ragga carabta ah xaasaskoodu way badan yihiin inta badan waxa la macaamila oo u yimaada waa dumarka carabta asaga odagii baa naagtii iga jeclaaday oo naagtii koobaad baan ahaayo tii kale iga raacay oo ii soo celiyo odaga sariirta ii jiifiyo iyo soo guriga iga bixin iyo alaabtaas islaamahaas u shaqeeya wixii lacag ay hayeen wixii maartay dahab ay hayeen wixii oo dhan ay u keenaan customer leeyahay marka rag dad badan oo haween badan ku xiran maalin walba marka dabaqa haweenaa sii kora waa soo degaan waa sii koraan way soo degaan ninka shaqadaas u qabtaa ninka laftirkiisu ma oga cidda guriga hoose degan waxay yihiin oo qola u kiraysa guriga uu u dhiibtay qoladii marka la macaamisho dadkan hadaba saaxir Luqmaan odagii asagoo jaranjarada ka soo degaya oo hoos u socda iyo Faatima iyo gabadheeda yartaa oo soo fuulaya ayaa la is arkay odaygii gabadhii wuxuu ku laabtay fiiro gaar ah oo qof noocan ahna ma ku nooleed magaalada camal oday caadi ma ah oday saaxir oo islaamaha saas isaga dabadalo oo nooc kala waay oo miduu qabto abti wax waay shabeelnaagoodka la dhigi jiray oday caadi ma ah wuxuu dhaag u guursan waaya beesha ku jirta caadi baa oday qoftaan wuxuu yiri xageed ka tahay markaas Faatima waxay tiri meesha deganay gurigan oo guriga baad degataa ha ma sha Allah aniga guriga Quraan deganay Luqmaan la yiraahdaa Sheekh Luqmaan la yiraahdaa qamiiskiisu wata imaamadiisu wata tusbixiisu wata Sheekh Luqmaan la yiraahdaa kaliya guriga degan waa kaas marka waa barasho wanaagsan guriga hada degantiin guriga ana iskale marka ninka guriga iskala ana hay waa maqalnay tiri ninka guriga iskala inuu kor degan yahay marka barasho wanaagsan yaa kula degan markaas waxay tiri waxa ila degan ninkayga iyo gabadhan yarta aan dhalnaa degan meesha ma sha Allah hayo way u ka tagi qisaduna marka waxay dhacaysaa 2009 ayuu qoraaga qisada aynu ka soo xiganay Abu Dalaal uu leeyahay 2009 ay ahay al-umum odagii gabadhii iyo asagu telefoonada la kala qaatay gabadhii soo wacay wuxuu yiri waxaan rabaa in ay caawiso
markaasay tiri maxaan kaa caawinayaa marka wuxuu yidhi mushaaraan ku siinayaa fiican guriga iga hagaaji maaragtay ihimaw guriga iga hagaaji marmar wixii aan u baahanahay cunooyinka qaar iyo maqaayadaha iyo mid jeceli ii samee odagu marka danuu leeyahay iyaduna lacagtaas iyo waxa kan waa ku siinaa yidhi lacag badan uu sheegay maclimadana lacag waa la jecel yahay caadi ma aha ayadoo dhan waa lacag hadday aragto bas waa jecel meel iska dhig waa qaanadiisa ku xidhay shaqadii bilowday guriga u hagaajisaa way habaysaa maxamed marka uu yimaadaa shaqada ku soo daahaa marmar iyadoo maqan u imaadaa guriga gabadha dariskay u geysataa gabadhii u soo kaxayaa gurigu keenaa tee jirtay sheekh luqmaan kan muxuu yahay sheekh luqmaan dee waa oday oo guriga iska lahoo oday iska weyn oo wa'da ah oo 70 jir ahoo waa caawiyaayo maaragtay guriga iyo aan waxa hagaajiyaa xoogaa lacagana waa nooga soo qaadaayo kirada guriga iyo korontada iyo waxa dhan waxa aan saga bixino ayaan ku kabaayo nolosheena ku kabaayo intaasoo lacag aan ka qaataa dikadii gabadhu uu jecel yahay sheekh luqmaankiina waa ku badbad sheekh luqmaan ku maqanahay sheekh luqmaan jira sheekh luqmaan ninka sheekh luqmaan waa ka soo go'ay ninkan war waxa kan sheekh luqmaan kan ma naga dhaaftay ma dhaafi karno oo nolosheena ku xirano hadda adigoo lacag yar keentaa adiguna de shaqadii kale waa iska daayo shaqadana ii fiican ninkan subaxiyaan guriga soo caawiya qada yar oo soo kariya habeenkii fiidkina oo soo hagaajiya waa intaas waa maalkii dad badan u yimaada macnaha koobabkii shaaha iyo wixii ay wax ku cabeen iyo wixii aan kala habeeya meeshu nin gurigiisa isaga shaqaysta waayo dadka quraan u akhriyo tiri ninkan gabadha uu jecel yahay jacayl baan uu sii qaaday waliba markuu guursaday gabadha uu dhashay nolol ninkan si uu yeela marka ma garanayo maskaxdiisu waxyaabo badan ku soo dhacaya odagu ma ku khiyaamaya marmar xataa wuxuu leeyahay odagu muxuu kugu sameeyaa war waxa ugu masay odaga waayeelka 70 jirka ma ka masayraysa ay dhaysa ninkii marka waa wareeray oday marka luqmaan ahaa luqmaan saaxir gabadhii wuxuu ku yiri dhageyso aniga lacag wixii ahayd waa hayaa boorso inta soo bixiyay asagu bangi xataa lacag ma geysto islaamaha carabta lacagta u ka aruuriyay way u xaraysiin inta boorsooyin u furay ayay waxay aragtay lacag ciidaas boorso kale u furay dahabka iyo alaabta u raran ayaabsa markaas wuxuu yiri dhageyso gurigan aad deganahay magacaagan ku sajilayaa waa ku qorayaa waxaanoo lacagana adaa iskale aniga wax ilmaa oo aan dhalay ma jiraan wax ku dhaxlaa male 70 sano jira wax ii haraa iska yar inta yartaa aan wada noolaano aniga sheekadaada iyo waxaagaaba iska rabaaba aniga ee cunugan meesha ninkan dhalinyarada oo ku qaba ninkan wuxuu haysta male lugta furdhaw anana lacag aad loo yara iyo wax ku qabsato isaga furto wax dhanana ku siilay baabkeedii la soo galay Faatima boogtay Faatima jacayl sheegay waxaas adigay ku qorantahay wixii filikii isku dhufsatay guriga ma igu qoree guriga qiimihiisii wixii soo tortolaalaysa waa fiirinaysa waxaanu lacag macna ka baada ka masuula dahabkan adiga iskale ay warwa maxamed wuxuu ku sheegay maxamed meeshaan wuxuu ku hay ma jirtay tire maxamed ki dagaal ku bilowday warniyo adiga daada waxbayna aan goonoona ay ku bilaabo islaamaha marka ay wax dabacsan yihiin waa la yaqaanaa marka jiira kasta oo soo baray maxamed waa qaylina waa cabaada walaalay ii dulqaado waxa waa iska heleynaa war waxaan bakaayla war dhageysiyo say ugu waday maxamed qaatib billahi joog habeen walba goonoona bariyo qaylo waa guriga dhanay nacsiis markii dambe waxay tiri waraa dhageyso aniga waxaan rabaa inaan iska kay furteena maxaan ku furaawiin waxba ma haysiisidena oo hadana waxba haysan odaga guriga maartay tiri kore aan guursanaay tiri dhilkaas aan galay war saaxiibo idhaafay tiri no waxba ma haysatid awalan maartay aan xogaa ku dan maartay dantaada iyo waxaaga inta
jacaylka ay sheegtay wixii marka hadda waxay tiri lacag haday timaado aniga fuluus gurigayga waa tiri ninkii maxamed waa wareer odaga sayeesha maxaa ku samaysaa walwal wareer odagii wuxuu leeyahay ninkii xaalkiisa hagee marsiinaysaa waa ka takhalusi rabaa tiri mar dhawaadaan diraa furaayri waranka sugaaya way u soo adeegaysaa ninkaan gurigiisa ma ka baxaysaba odagii sidii loo yiri dahabka halkaan ku jiraa maalin walba boorsaday tirtiraysaa istiraashada soo boorsadii lacagta waa tirtiraysaa tii dahabkii wixii oo dhan waa tirtiraysaa waxaan u dhacday ayuu la dara bacdii lacag iyo iyada wax kala haysta waa la yaab markii dambe maxamed iyo iyada habeenkii sidii loo murmaayo waxay tiri dhageyso see rabtaa wuxuu yiri saan xal ma aniga waan ku jeclahay gabadhaan yartaa hadda isu dhalnay ilmo kala sugaynaa wax dhaqaalaha iyo waxaan inta iska dhaaftay kii hore waa aragtay waxba kama aada faa'iidin markii dambe hadalkeedii iyo hadalkiisay dhageysatay markii dambe waxay tiri qorshaa noo haye odaga waa ka takhalusaynaa ay tiri waa dilaynaa lacagta uu haystan waa ka qaadanaynaa gurigiisa hala dhinta duro waxaa naga gala male dahabka iyo lacagtaaba nagu filan ay tiri oo see u dilaynaa yiri waxay tiri anaa u tagaya habeenkii shaahan u shubayaa kursigaan la fariisanayaa waa u sheekaynayaa romantic iyo alaabaan la galayaa maaragtay jacaylka iyo saan odaga laftirkiisa uga helay alaabaan u akhriraa albaabkana waxay tiri ma xiraayo waa kuu furayaa ee waxaa soo qaadataa bir weyn oo madaxa uga dhufato odaga hal mar inuu dhulka ku dhacaal rabaa tiri kadibna wixii guriga u yaallo dhanaan qaadanaynaa ay tiri ninkaan marka waaba sheeko uu rabay waay odagaan meel xaggee u martaa sidee yeesha awal uu ku fakaray xataa dhowr jeer odaga ma ka takhalustaa naagta kaa kaxaysanay marka iyadiiba hadday sheekadii la timid wuxuu yidhi raalliyaan ka ahay iyo nus anaana ka takhalusaa yidhi odagaan qorshihiyaa la degay albaabkiyaa loo furay ninkaan garuun bahal bir weyn bud weyn inta soo qaatay ayuu albaabkii inta iska soo riixay ayuu soo galay odagii inta gadaal uga yimid hal xabuu ku dhuftaa liir hal xabo uu madaxa gadaal uga soo dhuftay halkaasaa ku filnaadaba odagii sankii afku dhiig ka keenay maskaxdii dhan isku rushdee baal wuxuu ku dhuftay cunugana dee cunug dhalinyara oo xoog badan oo ahaa odagana oday waayeelo 70 jir waaye nig dhulka ku dhacay odagii way hubiyeen inay nafta ka baxday arkeen wixii dahaba guriga u yaalay iyo wixii lacaga guriga u yaalay way qaateen albaabkina way u xireen ka tageen qol gurigooda hoose iska tageen dahabkoodii waxoodii iyo meelo ku kala qabaysteen waxooda habaysteen khalaas hawshooda iska wataan customer marka odaga leeyahay habrii aaway oo islaami kalitiga oo ahaa oo taaliisha iyo wax uu sameey jiray iyo sixirka iyo way baarayaan albaabkii garaacayaan wax furaa bale way iska tagayaan kuwa kala imaana way garaacayaan way iska tagayaan kuwa saddexaad imaana kuwa soo laabanaya maalinkii saddexaad marka ayaa guriga waxa laga dareemay qolo marka timid oo albaabka garaacday urka dareentay dhowr marna soo laabatay ayaa shakisay way yaabeen maxaa sameynaa ilaahdeen guriga ninkaan inuu ku dhintaa u malaynayna maadaama uu ka soo baxayo guriga booliiskii la wacay booliiskii qadar oo ordayay waxay ilaahdeen ninka odaga gurigaan deganaan dhowr maalmood u soo laabanay marka waxay ilaahdeen guriga waxaasaa ku aragnay booliiskii gurigii jibiyeen ninkii oo meeyda loo tagay oo isbedelay oo maaragtay halkaa lagu dilay gurigii baareen boorsooyin saas u kala ballaqan wixii okay booliiskii marka baaritaana u yaala ninkaan yaa dilay
booliiska marka qaybta baarista timid qaybta baaristii markay timid gurigii oo dhan la baaray guriga waxay ogaadeen booliiska inaan la soo jabin albaabka oo ninkan guriga maadaama iyaga markii ugu dambeysay ay jabiyeen laakiin meel dariishadna lagama soo gelin albaabna lama jibinin ninkan guriga hanti u taalay in la qaatay boorsooyinkii wixii meesha yaalay la arkay wixii oo dhan ay isku sawirteen naagihii marka booliisku waxay qabteen qaar ka mid a naagihii guriga imaanayay oo odaga macaamilka la ah naagihii waxay yidhahdeen annaga odaga waa la macaamili jirnay tahliil iyo waxbuu noo tufi jiray marka annaga saasaa ugu imaan jirna laakiin wax shaqaa ku malayn mid ka mida marka naagaha waxay tidhi gabar aan markaa tagno shaaha iyo noo shushubi jirto Faatima uu ugu wici jiray gabadhuna guriga hoose inay deganayd ayaan maqalnay anaga odaga macaamil lahayn dhowr jeer u imaan jiray gabadha marka gurigeeda ka tahay qaybta hoose gurigeeda ka tahay okay ayada guriga hagaajin jirtay oo maaragtay shaaha iyo marmar noo sameyn jirtay guriga ayada la shaqeyn jirtay odaga booliiskii marka way soo baxeen Faatima la qabtay waa lagu tuuray xabsiga Faatima qaybtii baarista la fariisatay su'aalihii lagu bilaabay odaga ma taqaanay dariskeenu waa uu koray adi maxaa ka sameyn jirtay gurigiisa aniga waa u shaqeyn jiray tir shaqaala oo ahaa maadaama cid iska danyar aan ahayn haye waa caawini jiray oo guriga u hagaajin jiray marka dadka markay ku bataan shaaha iyo waxa u sameyn jiray maadaama dabaqa hoose aan deganaa uu yeeri jiray waa u tagi jiray waa u hagaajin jiray bishiina lacag uu siin jiray waatan akoontadeedii accountkaygii waa kan bil walba lacagtu igu soo shubi jiray oo mushaarkayga ah laakiin wax aan ka ogahay iyo wax kale ma jiro ninka baaraha marka indheedu baaray uu fiiriyay wuxuu dhahay su'aalan ku weydiinaa su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maadaama ninkan dhowr maalmood guriga uusan ka soo bixin oo ilaa uu ur sameeyo meydkiisa ay dadku soo sheegeen waay adiga aad guriga hadaad shaqaale u ahayd u tagi weyse waa su-aal muhiima mogta maxaa adiga guriga u tagi weyse maxaa u gargaraaci weyse usoo sheegi weyse maadaama adi hoos deganta urka dadkanu ay urayeen guriga dhana laga dareemayaay waay aa usoo sheegi weyseen guriga wax ka urayaan maaye walle ka tahay aniga warka ma haynin maalmahan xoogaa aniga laftirkeyga waa xanuunsanaa qandha i haysay fasaxaan ka qaatay waxaan maalmahan waa xanuunsanaa okay uu yiri iska markaa caafimaada ii soo noqo urkana dee anaga laftirkeena waa dareemayna laakiin wax meelaha ku dhintaa moodeyna darishada iyo waxa naga soo galaya guriga marnaba ma moodeynin qayle keent booliiska meesha ku hayaan marka ninkii la soo qabtay ninkeedii Maxamed su'aalaha la weydiiyay wuxuu raanay wax aan kala socdo male naagteedu inay ninka u shaqeyn jirtay oo soo caawini jirtay waa oga laakiin wax kale oo aniga ninkan afaariisa ama subaxii aan guriga ka baxaa habeenkii waqti dambe imaada shaqadaas warshada aan ka shaqeeyaa nin iska xamaashaan ahay aniga hawsha shaqo ku maleeyay waxna kama ogin ninkana gurigiisa weligii maba gelinba waxna dhex marayna male naagteeda aan u shaqeyn jirtay oo ka soo imaan jirtay aniga wax kale oo ninka aan ka ogaay male Maxamed waa iska soo daayay ayada laakiin wali waa ku jirtaa meesha su'aalaha u dhiman booliiskii markaa waxay u yeerteen rag khubaro ah oo booliiska ah waxay yidhaahdeen kiiska meeshaasuu joogaa ciddii odagaan dishay aa la iska rabaa marka nin khabiir ah oo aad baaridda u yaqaana oo booliiska qadar ka tirsan ayaa yimid waxaa la yidhi sheekadan marka adaa lagu xil saaray gaashaan la waa ninka waayahay yidhi ninka khidadu dega marka wuxuu yidhi naagtan yaysan hurdin su'aalo isku midana ha la weydiiyo dhah hurdada ha loo diido inay hurdo oo nasato oo maskaxdeeda nasato dhan ha la diido shakigu dhaagtaan cidaan ahayn ma ahan uu yidhi gaashaanle
وحير كدب nin fayl wataa uu imaanaya haye kaalay miiska soo fariiso su'aalaha la weydiinaya waa laga tagay mid kale ay maanay waa wareertu wuxuu maxay wareerinaysaa waqti aan seexda male iska daalire kaalay waa soo socotaa ma marka dambe waxay tiri noloshaan adeega badan dhibka badan si uun uga baxso markaas waxay tiri waxaan idin sheegayaa hal arin haye noo sheegaaliin marka waxay tiri gabar habar yartay dhashay ayaa guriga iigu timid odagana iga wareysatay maalmihii odaga gurigiisa ilaa 3 maalmood 4 maalmood intaanan tagin aniga oo xanuunsanay soo booqatay aniga marka gabadhaas su'aalaha ay weydiinayso wax badan ay weydiinayso ninka dhaqaale ma leeyahay ninka sidoo yahay marka aniga intaas ka badan ma ogi gabadha magaceed Heblaayo xageed degantaa meel Heblaayo waaya meeshii looga tagay aan nafistida islaalahay nimanka wax baaraya niman caadiya ba nafta lagu keenaa nafta ilaa marka dambe isku dhixiya cadid wax la sheegtay oo ay ka timaado su'aalahan baas meel uu uga bax gabadhii la soo qabtay waa lagu tuuray gabadhi su'aalaha la weydiiyay markaas waxay tiroora aniga dhageystay tiri booliisow gabadhaasi aniga ilma habreed waa nahay waa run laakiin aniga ayada guri ay leedahay aan tago waxa igu dambeysay gurigan hadda ay degan tahay maba tagin kii ka horeeyay ay deganeed guri weyn oo fiican oo markaasan aniga ayada dagaalnay tiri waxbaana dhex maray waa dagaalnay waa ka tagay tiri aniga waliba ninkeeda Maxamed ay iiga shakisay anigana muwaagaasaan u dirirnay meelay joogto xataa ma tagin tiri وارنتيد هبرير المحبرة ناي لكن وح كله وأنا الشيكة نكنا مجرناي جورجي هذا متين وح سؤالنا مويتين أنا ما أنا محاجة ربطانة تري قاشان لي هي الله شيء وحال الجبر دي لسوق بتسيد عسل هذا نكمل هنورا جبر هالي كانوا جبر دي على سوق بتوع الله كان قاشان لي وحيري وحن كارب ده maalinta bishu ay ahayd 8 9 30 afar maalmood waa maalmihii meydka waxa la ogaan karaa inta maalmood oo dhinsanaa dhaqaatiirtu ogaan karaan saacado dhinsanaa ninkan 2 maalmood oo dhinsanaa 3 marka ilaa 4 maalmood waxa noo cadaysaa halkii ay joogtay ilaahay amarkiis marka maalmaha loo sheegayo gabadhu meel tuule aheeba aaday ayada iyo familkeeda qaar kamid ah ay meesha ku maqnaayeen mar dhaweyba soo laabatay waxay tiri 4 maalmood ay sheegaysaan ka hor 2 week iyo kadib week halkaas ku noolaaba ani halka meesha tuulada ahaan joogay maba joogin ba magaalada tuuladii la tagay booliiska way soo baareen waxay xaqiijiyeen gabadhu inay meesha joogto gabadhu waa la iska fasaxay macluumaadii lagu bilaabay Fatima ahayd su'aalihii markala hadana sidii loo rakibto waxa la irbaana noo sheegtay gabadhaadii ayada saas waa maaye walle ka taabeen sheegaysa waxa ay noo sheegin su'aale isdaba jooga looma afinin ma daqiiqad lagama maqnaanayo jiira la soo galaa waa loo imaana jiira kala la soo galaa maalinta dabadana waxay tiri noloshaada baxso waxay tiri 3 wiil haye oo aanan garanayna albaabka ii soo garaacay haye waxay weydiiyeen odaga la yiraahdo Sheekh Luqmaan xaguu degay haye Sheekh Luqmaan dabaqa naga korayo degan yahay ariitri saddexdooda marka waxay tiri imaamaday wajiga ku duubnaa qamiisana waa wateen haye marka aniga albaabkayga markaan u tilmaamay waa iska xirtay inay kor u fuuleen iyo in kala ma aqaan waxaan u malaynayaa in iyaga aan looga dambeyn sheeko kale hadana sheegtay mugd مساسا ها سدحدا ما garanaysa ma aqaan tir aniga ma gaashaan li Allah sheego xalinaagtu waa beentay markii labaad horta wax kala ma sheegtay ha naagtan kiiskan iyada cidaan ahayn u dhaafsiisan ma jirtay ninka gaashaan la wuxuu yiri waxa xaqiiqsaday had inay wax ka ogtahay naagta dilka ninka sheekadu say u socotay waxba isku qaqasmay waa baaritaanka lagu wadaa ninkeedana la soo xiraaliyay ninkiina waa la soo qabtay asagana waa lagu tuuray su'aalaha lagu bilaabay sida loo weydiinay su'aalaha loo weydiinay
ayaa booliiskii mar kale waxay kusoo laabteen xaafadii dadkii ehladii iyo wixii la warwaraystay ninka muxuu ka shaqayn jiray ninka waxay yidhaahdeen ninka wuxuu ahaa annagu ma ogin laakiin inuu saaxir yaa u malaynayna sheekh luqmaan nin sheekha uu ekaa laakiin dadka waxba u samayn jiray ninkaa saaxir u ahaa ninka raadkiisiyaa la raadiyey wixii soo ogaadeen ninka inuu saaxir ahaa naagihii markii hore la qabtay wixii oo dhan maxuu idiin samayn jiray ninka taaliiluu noo samayn jiray wixii oo dhan marka cilmiga waxaan saaxirnimada iyo sixirka dowladaha carabta gaar ahaan khaliijka waaba dil toogashaa qoorta lagaa jaraa haddii lagugu helo wixii oo dhan marka booliiskii iyo arrintii baaritaankiisa u wadeen gabadhii sida loo waday markii dambe wuxuu yidhi ninkii dhagaystu dhahay gabadha hala daroogeeyo dhahay kaniini daroogaa hala siiyo su-aalahan ha lagu wado kiiskii wuu adkaaday mugta daawaa la siiyey gabadhii maskaxdeedu wareejinaysa macnaha alaab oo farsamaysan waaye kaniin daawo iyo waxbaa inta lagu siiyo wixii 8 sano ka hor soo marta dhanaa daldale saasay ahayd maalinkii sanadka saasoo sanadka saasoo alaabtaasaa la isticmaalay gabadhii meeshaa lasoo fariisiyey markii cabaar daawadii lagu hubsaday walaalay waxaan ku weydiinaynaa uu yidhi ninkaani adiga sida isku barateen daldalane bilowda warka ninka aniga guriga kasoo baxaaya saan alaabtii memorigii oo maaragtay maskaxdii dib u laabtay sheekadii dhananka sheekays haye ninkaaga iska soo furo yidhi saaro yidhi karo yidhi kaasuu yidhi okay wixii dhanaa intaa wixii laga dhagaystay meesheeda ku celiyaalay meesha lagu celiyay ninkiyaa loo tegay marka ninkii waxaa la dhagayso adeero ninka inaad dishay naagtaadaa loo sheegtay haddaadan qiranna waxa kugu dhaco waa la yaabaa ee sida ay wax u dhaceen noogu sheega asaga laba daroogeed marka ninkii marka wuxuu siri naagtii wixii waa kashaftay mogtahay ninkii asna dabada u qabtay ninka saaruu ahaa karuu ahaa saanay ahayd ayadaa saasi tiri beenteed waaye ayadaa hawshaa ka dambeysay ayadaa albaabka waa kuu sii daynay tiri kanay tiri maxaa ku samaysay ninkii jeegada ku dhuftay intii ay sheegto asna ku soo celiyay isagoo fayow hadlaa markaan kiiskii wuxuu waa la isku helay wuxuu laabteen gabadhoodii yartahay meelna daaru ricaaya la yidhaahdo oo macnaha caruurta lagu hayo ayaa la geeyey labadoodiina maxkamadaa la geeyey maxkamadii kiiskii iyo cadaymihii la geeyey marka dambe marka iyadoo fayow oo dawadii ka baxday ayaa kiiskii oo dhan la hordhigay markaasay tiri waa run waa fayowda markaan wixii daroogadii wixii waa ka baxeen markaasay tiri waa fayoobahay maaragtay sida uu ninka sheegay ma asagaa sheegay adigana waxaa ka tiri waa runtiisa tiri aniga asaga waa isla dilla tiri keligii ma dilin ninka aniga qirdadaa dhigay asagana ninka dilay waaye ma saas ahaa okay maxkamadii marka labadoodii way xukuntay labadoodiiba waxay ku xukuntay in la dilo labadoodiiba marka dilaa lagu xukumay uu yidhi ninka sheekada qoray halkaasaa lagu dilay uu yidhi marka waxyaabo marka gabadhiina yareedna waxaa la geeyey meeshii caruurta agoonta ayadaa la geeyey oo dowladda kafaalo qaaday waxbarashadeeda iyo cunadeeda iyo halkaasaa lagu xareeyey labadoodiina sidaasaa adduunyadu ay uga rawaxeen marka waxyaabo badanaa jira fakarkiina aragtidiina bal idinkuna waxay idinla tahay soo qora sheekadan waxaa laga ogaan karo ama laga faa'iidi karo lacagtu mararka qaar meel halisay kula galaysaa gabadhu way lacag jecleed laakiin markii dambe aakhiray u dirtay lacagti ninkiina isaguna halkaasay ku salfatay isagana aakhiru la aaday marka sheekadii marka qisadii toddobaadkan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim channelkana ha iloobinina inaad subscribe ku samaysataan dadka aan subscribe ka lahayn inaad subscribe ka samaysataan channelka maaragtay share gareeya sheekada sidoo kalena like ha ka iloobinina comments badanna soo qora aadaan u jeclaa commentiyadiina marka waa mahadsantihiin qisadeeni toddobaadkana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa inta aan mar kale kulmayno